fahad yaasiin xaaji daahir wariye siyaasi iyo sirdoon dhawaangal ah 8 sano la soo dhaafay wuxuu fahad si wareeg ah ugu dhex jiray nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya maray saaxiibadii dalka xukumayeen iyo maray xukunka wax ku lahaa ayuu u dhaxeeyay 8 sano la soo dhaafay wuxuu u muuqday siyaasi hore u socod ah oo abuuranaya suuq weyn saaxiibo iyo fikrado sii jiri kara laakiin tan iyo markii uu dooqday inuu noqdo taliye sirdoon fahad wuxuu gacmaha la galay carun siyaasadeed oo degdeg u jiiray mustaqbalkiisa waxaa batay eedaha loo tiriyo iyo tuhunka laga qabo waxaa lagu eedeeyay inuu cilaaqaad la leeyahay kooxda al-shabaab waxaana kaloo la duldhigay kiisas dilal ah oo ay ku jiraan weerarkii lagu qaaday guriga cabdiraxmaan cabdishakuur midkii lagu qaaday siyaasiyiintii banaanbixaysay iyo midka maanta taagan ee Ikraan Tahliil jihada uu fahad u socday niisa ka hor iyo midka uu maanta ku sii socdo waxaa u dhaxeeya farqi weyn waxaa si weyn loo duraa fahamkiisa dawliga ah gaar ahaan midka dawliga casriga ah marka laga tago jacaylka uu qabo inuu wax xukumo waxay dhinaca kale saaxiibadii qabaan in tixraaciisa dambe ay ku jirto falsafad sheegaysa inay la fududahay in wax walba awood lagu xalliyo waxaa la sheegaa inuu inta badan ku hadal qabsado in Soomaalidu ay caan ku tahay ilowshaha dhibaatooyinka oo buuqa iyo qayladu aanay 2 asbuuc dhaafi karin taasoo ah kalmad dhiirigelinaysa in wax walba la banaysto intii uu ku jiray shaqada sirdoonka waxa uu noqday qof aad looga baqo oo loo arko inay wax walba macquulka yihiin waxaa la sheegay inay aad u yaraadeen siyaasiyiintii la macaamili jirtay aaminaadda lagu qabo wada shaqayntiisa ayaa si weyn hoos ugu dhacday muddooyinkii la soo dhaafay qof raba inuu ka shaqeeyo siyaasadda sare ee dalka inuu u leexdo sirdoon oo uu carun gacmaha la galo waxay dad badan u arkaan aag bedelasho la ilduufay balse saaxiibada fahad waxay sheegaan inuu aaminsan yahay in qofka sirdoonka xukuma inuu yahay ninka labaad ee ugu awoodda badan dalka micnuhu waa inuu halkaas awood uga jeeday laakiin maanta mustaqbalkiisa waxaa dul saaran sakiin aan la hubin inay ku jirto gacan aamin ah 2021 fahad Ikraan doorashada baarlamaanka federaalka ah iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble fahad wuxuu isu diyaarinayay inuu ka xuub siibto niisa oo si weyn u dhaawacday maqaamkiisa shakhsiga ah iyo kalsoonidii lagu qabay wuxuu rabaa inuu u tartamo kursi xildhibaan oo yaalla magaalada Beledweyne kursigaas waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir wuxuu kaloo isu diyaarinayay inuu 2021 wax ka dhisto madaxweyne noqon kara farmaajo ama qof kale oo qarsoon laakiin hadda xaalku sidii uu fakarayay waa ka duwan yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu diiday fariintii uu fahad soo saaray oo ahayd inay al-shabaab dileen Ikraan waxaa loo qabtay 48 saacadood haddii uu muddadaasi ku keeni waayo jawaab ka duwan midii hore wax walba ayaa isbedeli karaa fahad iyo nisa kuma soo celin karaan mar kale fariintii la diiday ee ay soo saareen 3 bisha waana ku adag tahay inay dusha saartaan mas'uuliyadda dilka Ikraan halkan waa kala bayr halistiisa leh waxa isdul yaalla cadaaladda Ikraan iyo mustaqbalka fahad yaasiin xaaji daahir haddii uu diido inuu jawaabo waxay ka dhigan tahay in xilka laga qaadi doono dacwana lagu furi doono taasoo soo afjaraysa mustaqbalkiisa siyaasiga ah haddii galka dacwadiisa la qabto uma tartami karo kursi xildhibaan oo wuxuu noqon doonaa ninay dacwo ku socoto haddii uu shacab noqdo waxa uu kaloo wajihi karaa dacwado cusub oo ay ku jirto midda u diyaarsan xisbiga wadajir waxaa halkan ku ekaan doona cutubkiisii awoodda aaminaadii iyo wada shaqayntii saaxiibada siyaasadda iyo rajadii uu madaxweyne ku dhisan lahaa 2021 waxaana u bilaaban doona maalmo ka duwan 8 sano la soo dhaafay balse haddii uu dhinaca kala keeno haddaymo uu isku bariyeeli karo oo la helo qof uu ku baxsan karo oo isla niisa ka tirsan maadaama la diiday inuu kiis ku jiro dhanka al-shabaab dooddu waxay yeelan kartaa weji kale fahad yaasiin waxaa hortaalla 48 saacadood oo malaha ka xanuun badan wixii uu soo maray da'diisa oo dhan
waa 48 saacadood oo kulminaysa xaqa marxuumada dilay, sharaf uu raadinaya mid nool, sumcaddii qaranka Soomaaliyeed, aaminaadii sirdoonka iyo aayaha beela wada dhashay. halkay arrintani u dhici doonto iyo aayaha Fahad Yaasiin waa arrimo is suran. maxay kula tahay?